guddiga diiwaangelinta madaniga ah ee gobolka saaxil oo gudoomiye u yahay barasaabka Fahmi Cabdi Bidaar ayaa maanta kulan aad u ballaaran la qaatay gudoomiyaasha 5 degmo oo ka tirsan gobolka saaxil shantaasi degmo oo kala ah degmada Bulxaar Madheera Goodoweyn Laasciidle iyo degmada Xagal kulankan ballaaran oo ka dhacay xafiiska barasaabka gobolka saaxil ayaa iyaguna waxa goobjoog ka ahaa barasaab ku-xigeenka gobolka saaxil Khadar Cali Cilmi iyo mayor ku-xigeenka degmada Berbera Baasha Cabdilaahi Yacquub barasaabka gobolka saaxil oo hadal dheer u jeediyay gudoomiyaashaasi ayaa u sheegay inay u gudubtay diiwaangelintu wajigii labaad oo iyadoo hore loo soo qabtay ayuu yiri degmada Berbera iyo degmada Sheekh waxaanu ka codsaday in si hawlkarnimo ah hawshaasi diiwaangelinta madaniga ay u gutaan qof kasta oo muwaadinana xaq uu leeyahay inuu helo kaarka diiwaangelinta madaniga ama teesarada degmo oo idinka ah shantan degmada ku fadhidaan waxa lagu dhaanaysaa D xeerku wuxuu leeyahay shantan degmo D waxay xukumaan 5 kiiloomitir oo qura laakiin marka xaqiiqdu ay tahay shaqadiin hadda qabanaysaan 100 kiiloomitir baa xukuntaan idinka ka dhul badan arunta marka la sheegayo degmooyinka caasimadda waxa haddayna soo baxaysa inaa hawl badan haysaan oo intaasoo tuulo ay idinku xukuntaan marka waxaan kula dardaarmayaa waxa haysaan hawl badan ayaa qaranku haysaan mas'uuliyiin wax inaa muujisaan oo xil iska saartaan sidii maxay ahayd diiwaangelintu miyigaas oo dhan tuulooyinku miyibay ku xileeyeen waxaas oo miyiga aad dadka wacyi gelin lahaydeen inuu kaarkan faa'iido u leeyahay ay tahay meel kasta aqoonsi aan u baahnay hebel oo damiino ama hebel ay garanay aan u baahan dadka inay wacyi gelin wanaagsan sabay ku dardaarmaya waxaan muujin doontaa degmo kasta waxaan filayaa in lagu la xisaabtami doono mas'uuliyaddu qaaday iyo meesha uu ka diiwaan galiyay inta leegtahay ayaa soo bixi doona waxaan ku dardaarmaynaa waxaan idin haynaa abaal badan baan idin haynaa hadda tiin degmooyinka dhida because dhul fog baa ka shaqeysaan oo meelaha qaarkood aan isgaarsiin lahayn xil baa saaraysan sidii labada degmo marka hore u shaqeynayay kuna si ka wanaagsan u shaqeysaan oo waxa weeyaan cuqaasha iyo ciidanka idinka kaashanaya in hawsha ka soo baxdaan xiriir joogtaana gobolkana la yeelataan iyo taliyaha qaybta ayaan idin rajeynayaa waxa isku keen yeelay shantiina degmo waxa weeyaan waxaan rabnaa inaynu hawl galno hadda leeyahay soodayaasha hore sheegan halkan waxa fadhiya xubnaha darkeysaan oo guddigii gobolka ee diiwaangelinta intayadan guddigii gobolka ee diiwaangelinta weyn waxaan maanta hadoo bishii 30 ay tahay iclaaminaya haddii la yiraahdo ugu dambeyn bishii shanteeda in aan ka gudbayno wajigii hore una gudbayno wajigii labaad kaasoo ah in degmooyinkii kale labada degmo ee Berbera iyo Sheekh aan halka kaga baxayno una gudbayno degmooyinka kale ee shanta ah Bulxaar Madheera Goodoweyn Xagal iyo Laasciidle waxa weeyaan idinka ayaan idinku soo wareejinaynaa hawsha mas'uuliyadda maanta laga bilaabo oo aan ku dhawaaqayo haddii Ilaahay idmo waxa weeyaan idinka idinku soo wareegaysaa idinka waxa la idinka rabaa marka waxa weeyaan inaan idin sheegno waxyaabaha la idinka rabo laba qof oo askara oo booliiskeena waa la keenayaa haday joogaanna way ku joogaan saddex arrimood baa la keenayaa shantiina degmo midba saddex arrimood yaana saddex tiim saddex xafiis ka kala furaysan haddaad saddexdaba marka degmada guyeega u deysanaysaan iyo haddii aad idinku fikir soo jeedinaysaan yar kala baahina waa hawl idin taala laakiin waxa la rabaa bilmatal degmada goodu inta ay xukunto saddexda tiim qaabka ugu jajabin lahayd iyadoo taala sidoo kale Madheera sidoo kale Bulxaar mid kastiba waxa kale oo la idinka rabaa idinka inaad ii keentaan haddii la yiraahdo guddiga aad si dhaqso u soo gaarsiisaan 5 cisho gudahood 5 cisho gudahood xafiisadii la dhigi lahaa amba meelihii la dhigi lahaa goobihii la dhigi lahaa ee laga shaqeyn lahaa inaad soo gaarsiisaan oo tiraadaan way dhan yihiin qalabkoodu waa noo yaalaa xafiisadii waa noo yaalaan diyaar baan u nahay 5 maalmood gudaheed iyaan idinka sugayaa maanta waa 30 bari waa 30 insha Allah taala ilaa bishanteeda inta inaad ku soo diyaarisaan ayaa la rabaa anaga waxaan laga rabaa waxa weeyaan teamkii oo dhan oo poliiskiisii leh iyo labadiisii caaqil bale teamka saddexda team degmad kasta la geynayo
waxa ka shaqeynaya waxa weeyaan inamada ka shaqeynaya gudaha laba caaqil iyo laba askari waxa la rabaa labada caaqil soo diyaarinaysan soo jeedinaysaan waxa lagu soo ururinayaa waxa weeyaan xogayaha gobolka caaqiladaas waa inay noqdaan kuwa deegaanka wada ah labadaas way saddex waa haysataa saddexdaasi oo lix caaqil laga rabo deegaanka waa u qaybinaysaa si siman baa ugu qaybinaysaa waxaan uga dan leenahay wax kala maaha waxaan uga dan leenahay waxa weeye deegaanka de waxa ka qaadanaya tiimkaayo imanaya haddii la yidhaaho waa dad kala duwan kala beela ah nin kastiba si uu uga helo markaa caaqilkiisii garanayay waayo inamadu su'aalaadka ay weydiinayaan bay noqonaysaa waa caaqilkaagii sheeg foomka ku taala markuu yidhaa caaqilkaygii waa fahmi bilmatal fahmi de waa inuu joogaa meesha fahmi waa inuu joogaa meesha fahmi waa la weydiinaya waxaa leeyahay caaqilkiisii ma tahay haa baan leeyahay waa hebel 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 anaa u caaqila foomkaa lagu buuxinaya lagu sameeya سادكتي واحد كجرنا مركب مهمة عائلات هاي إن عاقلات وأي كود هاو جلان دجمدة دجموي كان مسؤول كتير سلوت دجني هاي عاقلات النوعين وجو ديار جنوبان وجونا قيف سنة الآن تاسوا ميت وحكلوا لنا بقى لما البوليس كايك هو عادي حديد دجمدة عائلات هاينا وبوليس كدجموي يجوا كفلي هنا وكفاية تاي سمونا هالدجموي كيه والحمد لله رب العالمين كل دقارنا ولو بهي دغمه غينا كشقيان سردغي ان لا فارقيه maaha therefore waxa weeyaan taana hawsha waxa noo qaabilsan khayr la siiyay waxa weeyaan taliyaha ciidanka isaga marka hawsha managementkeega si degdeg oo keenay labada caaqilna oogla waaniga xisaaray si degdeg in dukul soo gaarsiisaan isaguna caaqilada degmada degmo walba caaqilay leedahay caaqilada degmada waa soo gaarsiinaysan qaybinta waxa iska leh oogle iyo xaruntii inta saaleed ka rabaa shaqadu saasay noogu qaybsan tahay tiimanka marka inoo jooga waxa weeyaan waa la keenayaa tiimkaas idinka ka mas'uula idinka ayaa ka mas'uula ilaalintooda ka warqabkooga wax si yaala dimale laakiin dejintooda idinka martidiin laga bilaabo maanta aan ku soo wareejino anaga in halkan baabar aan kaga soo qaadno degmo walba aan keenno gudoomiyaha degmada maalinta hadii ilaahay dhaan cilaamino inaan ku wareejino anaga mas'uuliyadda leh idinkana waxa la idin karaa wax weeyaan maalinta laga bilaabo bil bay idin shaqeynayaan bil ayay degmada ka dhex shaqeynayaan iyo meesha ay geysataan idinku isla aroon hareeraheegaya bisha waxa loo baahan yahay in si fiican ugu shaqeysataan tartan baa lagu jira tartankaas waa maxay kii waagi hore kala ma aha kii belbel iyo qolqoladii ma aha tartanku waa heer degmo walba inay soo saarto dadkeygii iyada ka mas'uula tartankaas waxa lagu jira heer gool baa lagu jira intiinaasi markaad shaqeysaan si fiican dadkii u qaataan kaalkoogii baa la keenayaa imka waraqa la siisinaya kaalkii waa diyaar waxaan ku bilaabi doonaa insha Allah taala imka markaan ilaa saan dambe waa soo gaarayaan berbere iyo waxaan ku bilaabaynaa sheekh si loo kala horreeyay inta la wado idinkana waa la sii wadayaa qayb waliba la idin keeni doonaa insha Allah si aad dadka u tustaan kaalarkii waxa loo baahay markaa inaan dad gobol ahaan tiradiisa aan kor u soo qaadno وياسين جامع علي هل وناغ نيوز مغالدة بربراء